بسم الله الرحمن الرحيم نبض صاحبيال barnaamijkeena markaad eegto waxaanu kaga hadlaynay oo runtii inta badan aan halkan ku faaqidaynay waxay ahaayeen sustainable development goals-ka ama runtii yoolalka horumarka waara oo nagu talagalnay markaas inaynu bulshadeena barno ama barno ku wacyigelino si ay u noqdaan runtii qaar ula jaan qaadi kara markaasi halbeegyada ku jira waxaanu wadnay goolka 13aad ama yoolka 13aad oo runtii ahaa climate action oo wax laga qabtaa isbedelka cimilada maalinta hore waxaan ku soo qaadanay markaasi fikrad ahaan maxay tahay cimiladu ama isbedelkeedu muxuu yahay taariikh ahaan iyo sidoo kale maxay yahay xaqiiqada ama runta ka dambaysa markaasi climate markaad eegto isbedelka cimilada ama doorsoonka oo runtii labada eray runtii kolba si loo dhigi karo laakiin se walow ay u badan tahay markaasi doorsoonka cimilada wuxuu leeyahay markaasi bartilmaameedyo ayuu leeyahay markaasi maanta waxaan bilaabi doonaa bartilmaameedka koowaad baan bilaabi doonaa bartilmaameedka koowaad wuxuu ka hadlayaa markaasi markaad eegto in runtii dadka ama runtii hay'adihii shaqeynayay in awood loo siiyo markaasi waxaan loo yaqaano u adkaysiga cimilada oo macnaheedu markaasi dhinac walba markaad eegto ama runtii hata dhinaca dhaqaalaha ama hata markaasi dhinacii awoodda runtii infrastructure-ka iyo iska xijinta isbedelka cimilada sidoo oo kalena iyadana in sare loo qaado awoodda la qabsiga oo runtii inaanay noqon markaasi in qofkii ama runtii hay'adii ama dalkiiba uu noqdo mid la shaqeyn kara markaasi doorsoonka cimilada iyo runtii waxyaabaha uu keeni kara markaasi haddaba markaynu eegno si yacnihii adduunyada dhan markaad u eegto waxaa runtii waxay leedahay meelo gaara oo runtii xoogga la saarayo si yacnihii looga hortago markaasi doorsoonka cimilada nolol kordhiyana awoodda la qabsiga iyo maxay u adkaysigeeda meelaha waxaa ka mid ah marka ugu horreysa waxaa la isla qaatay in la sameeyo waxaan loo yaqaano in hoos loo dhigo markaasi waxaan loo yaqaano carbon emission-ka oo ah markaasi kan adduunyada wareeriyay runtii qiiqan la soo saarayo 45% in hoos loo dhigo intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2030 markaasi oo halka uu runtii yoolku ku jooga sidoo kale waa in runtii la kordhiyo oo runtii xoog loo maxay maalgeliyo waxaan loo yaqaano sustainable energy-ga oo ah runtii meelaha tamartu inooga soo baxaysa gaar ahaan kuwa cadceed oo kale dabaysha oo kale oo kale idana runtii laga faa'iideysto tamarta laga dhalinayo markaasi xagga biyaha oo kale markaad eegto dhammaan kuwan la infrastructure ayaga laftoodu waxay hoos marka u dhigi doonaan nuglaashaha runtii cimilada aynu nugulnahay iyadoo markaasi dhinaca kalena hoos u dhigayso markaasi dhinaca kaarboonka iyo oo kale xajira awooddaas waxaa jira runtii caqabado badan oo haysta dadka ama runtii hay'adaha ama adduunyada oo dhan dhammaantood maduuli haadaanba iyo duuli ahaane caqabadahaas ay ka mid yihiin dhinaca dhaqaalaha oo financially runtii noqon karto dhibaatooyin badan inay la soo darsaan oo runtii ayna ku wanaagsaneen wadamada qaar sidoo kale waxaa ka mid ah xaggii runtii xukunkii oo kale marka good governance-ki oo kale isaguna aan ahayn markaasi aan wanaagsaneyn caqabad buu ku noqon karaa waxa kale oo ka mid noqon kara peace and stability wax loo yaqaan xasiloonida iyo nabadda oo iyaduna ah doorka ugu muhiimsan markaasi runtii cimilada iyo ka hortageeda markaasi lagu xalin karo kuwaasina haddii markaa meesha ka baxaan ay noqon karaan markaasi challenge waxa kale oo ka mid ah dadka dhexdooda ayaga laftooda inay noqon karaan markaasi wax loo yaqaano vulnerable haday yihiin nugul yihiin oo markaasi dhinac walba markaad ka eegto dhaqaale ahaan iyo markaasi awoodii kalaba dhamaanteed markaan isku soo wada geyno adduunyadu waxay challenges kaas oo dhan ku xalin karaysaa waxa weeyaan waa partnership ama iskaashi weeyaan markaasi iskaashigaas wuxuu noqon karaa heer adduunyada heer regional oo runtii qaarad noqon kara ilaa heer uu soo gaaro markaasi wadankii oo u sii daadegi kara markaasi maxay ahayd localkii uu sii daadegi kara dadkii community uu gaari kara markaasi maanta barnaamijkeena qodobkaas ku faaqidi doonaa runtii waxa marti inooga barnaamijkeena Xamda Cali Maxamed oo runtii cilmigaasi runtii aqoonteedii leh sidoo kale Xamda markaad eegto degree-geedii ahayd veterinary ama doctor oo xagii xoolihii master degree-diina ahayd markaasi master of climate change and environmental sustainability oo macnaheedu cimilada iyo runtii deegaanka runtii joogtiintiisa in terms of markaad eegto wanaajintiisa aad eegto marka Xamdan runtii maanta barnaamijkeen marti nooga Xamdan ku soo dhaweyn doona ayada runtii noo eegi doonto mawduucaasi runtii wixii su'aalan qabnana waan weydiin doonaa ilaahay alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh qabla kulli shay allah subxaanahu wa tacaala ya mahad iska leh ogolaaday
inaan goobtan iskugu nimaadno. marka labaad waxaan mahad celinayaa maxamed oo igu marti qaaday platformkiisa quruxda badan loo kaga hadlay sustainable development goalska ama 17ka riyo ee loo arkay in lagu xaqiijin karo horumar waara taasoo la isku waafaqay in la gaarsiiyo 2030 hadii la yiraahdo. sida maxamed sheegay goolka halkan inoo yaala waxa weeyaan goolka la yiraahdo goal number 13 oo macnihiisu yahay climate action. sidii loo ognahay climate action waa kelmad weyn oo xambaarsan wax fara badan. si kala hadaynu dhigno adduunyada aynu ku suganahay dhamaanba maxamedow ama atmosphere-ka gibilka inagu dahaaraha noqdo ama ka inaga hooseeya ha noqdo intuu jiritaankooda iyo joogitaankooda waxyaabay ku sugan waxa kamid ah waa climate ama cimilada systemka cimilada. goolkan sidaad ka dhawaajisay wuxuu lahaa taargeto loogu talagalay oo lagu xaqiijinayo si loo gaaro sustainable development 2030 insha Allah. goolkan aan maanta martida kuugu wahay waxaan soo qaadanayna waa hal target ama hal ujeedo ah. ujeedada koobaad oo odhanaysa in la kobciyo bulsho laba kelmadood oo isa saaran kelmadda resilience iyo kelmadda adaptive capacity. labadan kelmadood inuu gadaal ka sheegi doono ahna laba kelmadood labaduba xoog waaweyn yihiin waana heshay mar iyo laba iyo saddex ba lagu koobi karo. haddana waxaan isku daynaa maadaama platformkeenu yahay kaliya dadka ka siina fahan oo bulshadana ay wax ku celino inaan dul marno ay tahay hadii la yiraahdo. maadaama ay resilience iyo adaptive capacity yeelaan waxa lagama maarmaan markasta waxaan ku noqonaa waa climate change. climate is always changing. sida caadiga adduunyada intii la abuuray ilaa hadda cimiladu waa isbedelaysaa. isbedelka ay isbedelayso hadda ka hor wuxuu ahaa mid aan dhibaato badan lagala kulmin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay u socda. dunida markii dadka lagu abuuray ee dad fara badan ay yimaadeen ayaa dadka bini aadamka sideedaba way dhib badan. haddii ay wax sameynayaan oo waxa ay u isticmaalaan sidii loogu talagalay si aan hayna qof kasta uu dareemayaa inay ka dhalanayso hawl weyn. marka hawsha bini aadamka ka dhalatay baa waxay sababtay iyo isticmaalka ay ku badiyeen adduunyada khayraadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay inta adduunyada jirto in bini aadamka farsameystaan baa dadka qaar waxay doonaan inay sameeyaan dhaqaale siyaada kadibna waxay u isticmaalaan si ka badan sida loogu talagalay. taas waxay dib ku keentay iyaga iyo intii iyaga ka liidatay ee noloshooda ku hooseysayba heerka dhaqaalaha. maadaama cawaaqibtaada ka dhalatay waxa loo bixiyay climate change impact. climate change impact waa laba waji laga eego waxa la yiraahdaa climate change impact wuxuu noqon karaa ayada mid wax lagu diirsan karo oo positive ah oo negative uu noqon karaa yani rabitaan aan la rabin oo dadka iyo deegaankiiba dhib ku ah. maanta ka hadlayno ka dheefta leh maadaama aan joogno Afrika sidoo kale joogno wadamada dhaqaalahooda hooseeya waxayna hor yaala waxa weeyaan ka dhibta leh ama negative impact of climate change. negative of impact climate change horta waxa qaatay wiil ku takhasusay isla mawduucan oo ka soo hadlay history ahaan climate change kuma reality ama samaha ma wax dhayba mise maaha iyo halka la isla maray ilaa hadda. goolkan markii la sameeyay climate change ama climate action ee targetkiisa laga dhigay koobaad in la kobciyo resilience-ka dad leeyahay ama adaptive capacity-ga dad leeyahay baa waxaan wajahaynaa dhowr koox. resilience iyo adaptive capacity-ga oo ay qeexi doono oo la kordhiyaa waa fikir iyaga yimid. fikirkaas markuu yimiday waa la isla qaatay ayaa lagu fulinayaa ee ah dadka kor loo qaadayo waayo wadad noocee ah oo dadka halkee ku nool dunida kaga nool iyo siyaabaha yaa bixinayaba waxa kor loogu qaaday iyo ma shaqo u taala qofka bini aadamka qof walba u taala mise waa shaqo u taala in gaar ka area inaan dhaafin ay la tahay sin wada ogsoonahay
labadan ereysa saaran waxaan doonayaa inaan kala saarno adaptive capacity iyo resilience. markaan leenahay adaptive capacity aan ku horeeyo adaptive capacity waxa laga bixiyaa qeexitaano kala duwan si doontaba ha ahaatee adaptive capacity waa kelmad ku qotonta waa awooddaas oo siinaysa cidda ay ku dul dhacaysa in ay ka jawaabto falka dhibaatada la ku dul dhacay. That's adaptive capacity. Adaptive capacity waa kelmad ku kooban sida caadiga waqti kooban waqtigeedu yariya waa kelmad cabirkeedu fudud yahay in la yiraahdo adaptive capacity gaas ciddaas way sareysaa ama way hooseysaa waa laba cabir oo midkood ay qaadan karto yaa way sareysaa ama waa adaptive capacity ciddaas wax hooseeya. adaptive capacity waa qabsi waa awood la qabsiyeed awoodda la qabsiyeed laba wax baa meesha yaalo dhibaatada timid tusaale ay u qaadano hadii daad yimid daadka waxa ka dhashay xanuunkaas wuxuu saameyn karaa xoolaha wuxuu saameyn karaa bini aadam wuxuu saameyn karaa dhirta saddexdaa noole awoodda ay xanuunka kula qabsadaan baa la oranayaa yaa way sareysaa ama way hooseysaa. marka adaptive capacity adaptive capacity markay ka hadlayno awoodda lagula qabsanay dhibaatada timid marba jirta dhibto ayna iman iyo mar ay timaado markay timid awoodda lagula qabsan lahaa waa taas laakiin ka hortag ma adaptive capacity. marka adaptive capacity wuxuu ku kooban tahay dhibti waabay dhacday oo waa la kulmay ama aadama la kulmay ama bini aadam ama dhir sidee looga falceli isla waqtiga dhibti dhac ma mid sareysa noqoto mise mid hooseysa noqoto haddii ay sareyso adaptive capacity ga ummadi sareyso ama goobi sareyso ama meel sareyso ama nool sareyso in loo horumariyo mooyaane uma baahna wax far badan laakiin haddii ay hooseyso ayay tahay ta keentay dhibaatada in kor loo qaado taas baa waxa ku taala in la xoojiyo adaptive capacity ga ma ha sareyso ama ha hooseyso kelmadda xoojin baa taala targetku waa xoojin adaptive capacity marka ka hadlayno awoodda la qabsiga weeyaan awoodda la qabsiga way sareysaa iyo way hooseysaa waa laba cabir weeyaan adiya marka la qabsiga laftiisa qofka maxaa yaani waxyaabaha ku cabirayna la qabsigaas maxaa kamid la qabsiga waxa kamid haddii uu bini aadan yahay waxyaabo fara badan baa imanaya fatahaad kan soo soo qaadanay fatahaadii qofka bini aadankii haddii uu hayo dhaqaale markii ku soo wajahday uu ku difaaco awood la qabsigu wali haysta xanuunka soo wajahay haddii uu difaaci karo wali jirkiisuna ayadan waxba lagu carinin ama la siin wax cariya ama wax kobciya wali wuxuu haystaa adaptive capacity يعني وقتها إنه نكرنا كأدبت كباسة في عن أيوه هاست القبس في عن أيوه هاست هذا قفكي دقاله وككب سنكره مركا كنت مع الدبي أما عافمات كيسي ككب سنكره مركا مع الدبي سؤالك كبا ويسلف هنا في الأيام وفهمني مركا دكتور مركا أدبت كباسة وفلا اللي هو اللي بنا حاجة دكتور ما في لك عليه واللي دقالها إريك دقالها وكلا السوق ereyga dhaqaalaha kale waxa weeyaan marka ka shaqeynaa community adaptive capacity ka shaqeynaa waxa weeyaan dhaqaaluhu inuu yimaado ama dawladda ha ahaato ama meel kale ha ahaato mise waxa weeyaan adaptive capacity ayaa gudahooda ka imanaya markaas su'aal wanaagsan adaptive capacity gu sideedaba laba wajiha buu ka yimaada mid absorptive baa la yiraahdaa midna waa adaptive oo yani waa shay qofku ama cidda meesha degan ay haysato dhaqaalahan ama waa cid ka keenay meel kale sida tusaale fudud xagga caafimaadka ka dhow immunity-ga si naqaano mid qofka bini aadankii ama xayawaan bahaada waa ula dhashaa ama jirkiisu ku jira oo wuxuu u baahan yahay la cariyo oo la siiyo maxay vaccination talaal oo kale waa soo kale awoodda la qabsi wixii noqon kartaa mid gudaha ka timiday ama waxay noqon kartaa mid dibadda ka timid oo lagu caawiyo oo u haysto oo gidaar ah marka waxaan oran karnaa adaptive capacity waa awoodda uu kula qabsanayo ha uga timaado dibadda ama ha ugu sii jirto gudihiisa oo marka hore ha haysto waxyaabaha hadii xataa waxaan dibi ka soo gaadhay ku bedelan karo waxa jira runtii marka la to awoodsiintaas oo kale waxay ka sida sheekada lama qayb uga qayb saxaga runtii cid ka madax banaan gudaha ka soo kacay marka waxa jira
waxaan inta badan ay leeyihiin xoog u saaran waxa weeye indigenous knowledge qaadaduna wax ka qoraysa adiya oo ah runtii qaabkii aqoonta gudaha loo kordhin lahaa si ay markaa u keento adaptive capacity fara badan xilliyada ay jiraan markaasi disasters ka iman karaan ama musiibooyinka iman karaan adiya marka taasina runtii waa qodob aad muhiim ah iyadoo la doonayo markaasi runtii in laga hadlo in financially markaad u eegtana runtii saad sheegtay way sii kala duwan tahay marka kasii tagno runtii isaas wax rajaynaya adaptive capacity yani duluc guud markaad eegto saas intaas adiya marka kasii tagto erey kale waxaa jira resilience la yidhaho adkaysi la yidhaho adiya resilience weli isaguna wuxuu taagan yahay xilligii dhibku dhacday oo katag weli lama gaarin resilience ninka hadlay waa adkaysi qofka wuxuu adiya marka adkaysigaasi oo ah dhinacyo badan yeelan kara marka maxaa runtii isaga laftiisa kaga duwan yahay muhiimaddu waxa weeyaan resilience laftiisu waa adkaysiga ayaa wuxuu lahaa hadda adaptive capacity markaan ka hadlayna badanaa waxa lagu suureeyaa xagga noolaha ayaa loo tiriyaa maadaama waqtigiisu kooban yahay dhibta dhacday degdeg ah waxay cidda hore uga falcelisay ama la doonayo waa humanitarian waa noolaha weeyaan iyo dhibaatadiisa kasoo gaarsa caawimaadiisa ama bini'aadam ha noqdo ama xayawaan ha noqdo ama dhir burburtayba ha noqotay laakiin resilience markaan ka hadlayno waa shay intaa ka ballaaran resilience-ku horta waxa weeyaan waa kelmad koobsata xagga dictionary-da marka laga eego waxaa la yidhahdaa haddii walax taagan tahayna waxaa la eegaa walaxdaas inta ay kusoo noqonayso cabirkeedii saxda ama sideedii saxda ama qaabkeedii saxda tusaale waxaa ugu fudud waxaad kala jiidicin jir ama elastic baad kala saartay elastic intaad kala saartay wuxuu bedelay shape-kii uu lahaa ama qaabkii uu lahaa ama qaab dhismeedkii uu yaalay haddii aad sii dayso wuxuu kusoo noqday qaabkii marka resilience-ku wuxuu matalaa sida saas oo kale macnaha waxaa looga jeedaa dhibaatada marka ay dhacdo wuxuu imanayaa asaga ka hor intaanay dhibtu dhicin dhibta oo taagan iyo dhibaatooyinka soo socda saddexda waqtiba uu ka falceliyaa asaga resilience-ku marka uu ka ballaaran yahay adaptive capacity waana waxa keenay resilience-ka marka la qorsheynayo ay la doonayo in bulshada resilience-keega ama kor loo qaado awooddu kaga kabsan karo tani waa awooddu kaga kabsan karo diyaar waxay awooddu kula qabsan karo tani waxay waa how to cope si uga kabsan karo inuu ka kabsado wixii soo maray marka ka kabsiga uu ka kabsanayo waxaan oran karnaa waa resilience oo la dhisaan waxay ku xiran tahay muddo dheer waxaana ku xiran tahay iyadu xaqiiqooyin baa la raadiyaa sidoo kale go'aamada marka la qaadanayo cid fara badan baa laga maxaa la yiraahdaa laga shaqaysiiyaa oo cid baa lala tashadaa bulshada meesha degan ayaa laga tashadaa oo waxa la kala doortaa go'aamada ayaa la kala horumariyaa hadii saddex meelood aad is leedahay dhibaato ayaa ka imanaysa ama fatahaad baa ka jirta ama abaara ku wajahan saddex meelood meesheeba u daran baa la doortaa prioritization wax la yiraahdo jira dad baa go'aanka la weydiiyay sida bulshada meesha degan hadii ba la meesha fatahaad ku sugan tahay tusaale oo la rabo in laga raro marka ayadu waa qorsheyn u baahan sanado inay socoto waana la update karaya waa shay la daba socdo waxa la yiraahdo go'aanka hore maxay iska bedel hadda maxay nagu foodlay marka asaga wax evidence la yiraahdo ku shaqeeya wixii hore dhacay ma fatahaad ba dhacday ma abaar ba dhacday maxaa laga bartay toolska ama waxyaabaha qalabka waqtiga la adeegsaday muxuu ahaa sidee baa looga dabaashay hadda kuwa dambe imanayna sidee baa u xalina marka waa mid ka gun ballaaran maxaa hatta adaptive capacity ayaa la isweydiiyaa ummadda aad doonayso inaad wax u qabato ee resilience-keega kordhida ama la qabsigeeda dambe kordhisa ma ummad imika la qabsigeeda hadda waxa ku dhacay hooseeya mise ummadu sarre ummadu sarreeyo la qabsigeedu resilience-keedu wuxuu u baahan yahay in maxay kobcin laakiin ummadda hooseeya u baahan in meel sare la geeyo oo laga qaado marka labada kalmood sidaas ayuu kala bilaaran yihiin Maxamedow waana labada kalmood ee aynu hadda ku fadhino ee ah in la xoojiyo ummad inay degdeg uga jawaabaan oo la qabsadaan awoodda kula qabsan lahaayeen iyo awoodda dhibaatooyinka soo socda ay kaga hortagi lahaayeen kuwii soo dhaafina casharkii ay ka barteen ku nood karaysan lahaa labada eray intaas ay koobsanayaan marka eegto dhammaan dadku waxay ku fadhiyaan waxay soo kala analysis ku fadhiyaan yani dib loo eego wixii jiray si looga qaato kadibna la eego markaasi wixii man kara markaas waliba ayadoo eegayna trends yani hababkaabadaha soo martay waxaan marka waqtigii ugu dambeeyay kala soo kordhaysay mise waxay haydaan wali si yani degan ku socotay markaas waxaa jira eray kale oo la odhanayo waa strength ama waa xoojin
resilience-ga iyo oo ah markaasi adkaysiga iyo adaptive capacity-ga oo ah isaguna maxay ahayd markaasi awoodsiinta iyo maxay ahayd awoodda la qabsiga labadaba markaad eegto strengths basal oo markaa labadaba in la xoojiyo hada marka sheegtay waxaa jira in la xoojiyo resilience-ga haddii uu jiro markaas haddii kale uu jirin in la dhiso sooma saas oo kale adaptive capacity-ga ayada lafteeda waa saas marka strengths oo kale strengths maxaa keeni doona yani meelaha ugu badan marka dhinaca climate ku saleysan doonayna inaan xoojino maxaa kamid intiinaan u tegin inaynu xoojino horta waxa weeyaan yaa xoojinaya shayga aad qabanaysid waana jirto cid qabanayso oo loogyahay midda kale goorma ayaa la doonay in la xoojiyo shayga waqti baa la doonay in la xoojiyo ciddii doontay inay xoojiso maxay ku bixisay maxay ka faa'iideysaa adigoo dad xoojiso maxaad ka faa'iideysaa waa su'aalaha waniga kugu laa markii ku horeysan bilaabeynay sidoo kale dadka daawanaya markasta waxaan u baahannahay horta inaan ogaano climate actionku waa wax cid gaara aan loogu talagelin inay ka qayb qaato waa wax ka bilaabma qofka ku dhamaada adduunyada oo dhan sida qof gurigii kusoo bilaabmayo deegaanka xaafadda dawladda ta kula jaarka qaaradda ilaa adduunyada oo dhan waa shaqo cid kasta u taal laakiin waa lagu kala awood duwan si loo kala qaadayo iyo mas'uuliyadda dadka kala saaran u ba kala duwan mooyaane climate actionku ama in la xoojiyo labadan shay ah in aadanka awoodiisa la qabsameed iyo awoodiisa ka kabasho waa wax cid walba sugaysa horta waa cid kasta laakiin markaan dhaqdhaqaaqa climate change-ka waxa lagu xusay UNFCCC United Nations Convention for Climate Change oo ah ay ku kulmaan 197 dawladood parts ay ka yihiin 1992 1992 ala bilaabay fadhigiisa 1993 waa la saxay inkastoo saxeen 156 dawladood kaliya halka 1994 effective laga dhigay ama dhaqangal laga dhigay ujeedada ugu weyneed halka la iskaga yimid baa ahayd climate action wax kala meehan adduunyada sii diirtay adduunyada la kordhiyay ay korodhay maxaa la radaa intii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina siiyay isticmaalkeena faraha badnaa wuxuu ku daray adduunyada dikhowgaas oo ah in la kordhiyo waxyaabo la radaa greenhouse gas emission adduunka lagu kordhiyo maadaama greenhouse gas emission lagu kordhiyay dad khaas ayaa kordhiyay waxaana bilaabantay dhibtan sidoo hore looga soo waramay xilligii warshadaha ka hor wax dhibaato lagu qabay cimilada major muddada 30 sano dib loo noqday ayaa waxa la ogaaday in warshadihii ay keenaan dhibaato markay keeneen UNFCCC ka fadhiisatay waxa loo baahan in la yareeyo climate change impact dhibaatada ka imanaysa marka dadkaas waa dadkii u fadhiistay in la xoojiyo resilience iyo adaptive capacity waana saxeexan heshiisyo badan oo waxa jiray markii dambe laga bilaabay sida Kyoto Protocol oo kala loo fadhiistay 1997 saddex outcome ayaa ka soo baxay saddexda outcome ka soo baxay midka ugu dambeeya ayaa inaga noqosay waxa la yiraahdaa clean development mechanism oo oranaya dadka horumarka dhaqaale gaaray waa say iyagu dhigaan adduunyada horumarka developed countries waa in ay ku bixiyaan dadka aan horumarin lacagayow ay ku yareyn karaan dhibaatooyinka ka imanaya cimilada isbedelkeeda 1997 waa outcome-kii ugu horeeyay ee ka soo baxay halkaas wuxuu ahaa clean development mechanism baa ku jira oo hal la yareeyo maadaama la yareeyo waa lacag lagu bixiyo waxa la isweydiiyaa bixinayo isla intii lacagta lahayd bay ku noqotay waayo dhibaatada adduunyada markii warshadaha la sheegay inay dhibtu warshadaha ka timiday wadamada Korea ma sameeyeen wadamada Korea ba sameeyeen marka waa inay magdhow bixiyaan ujeedada ugu weyn ee lagu xoojinayo wixii ahaydba ayaga waa inay magdhow bixiyaan magdhowga ay bixinayaan laba faa'iido ayuu leeyahay dhibtii iyaga ka soo baxday waa laga yar nafisay mid labaadna waxa weeyaan qarniyada soo socda waxa laga yaabaa in lagu badbaado qaaradda Afrika oo si hadalka u dhigeen ama iyagu ay rabaan
markay bixinayaan waxa la xusi karaa iyadana waxa weeyaan waxa la raado Kyoto Protocol weyn sheegnay Paris Agreement heshiiskii Paris ka dhacay 2015 baa la isugu furtay 2016 waa la saxeexay wixii lagu saxeexay waxa kamid ah waxa ku jiray oo ka soo baxay 30 article baa jira ama 30 sharci 30 sharci article ka labaad article ka saddexaad article ka toddobaad iyo article ka 12aad iyo article kale oo aanan anigu si dhaxgalinba oo aan siraaday waxa ka muhiimsan kuwan qodobka markaan u eegay hadda aan ku jiro article ka saddexaad faqradiisa labaad iyo faqradiisa saddexaad waxa ku xusan in la kordhiyo awoodda ay kula qabsanayaan climate change-ka wadamada Korea iyo in la bixiyo lacag lagu bixiyo si ay ula qabsadaan هادي دورسون كعملada ku dhacay article ka toddobaad isla sidaas la mid waa in la kordhiyo awoodahaas lagu yareynayo reduction emission waxyaabo la sii deeyno sidoo doonaha loo yar waa in la fuliyo projectyo la yiraahdo green economy waxay green economy la yiraahdo green economy oo dhan waa in la sameeyo dhaqaale ku saleysan green macnaheedu kelmadda green waa akhtar يعني waxa weeyaan aan dib ku lahayn waa dhir waa forestiga la jaray ee Afrika hal kobciyo projectyaha lagu sameeyo reforestation projectyo noocaas si kaarboonka dunida inagu aan ku sii diino ama iyagu ay hata wadaan ay ku sii deynayaan ay u nuugan kadibna loo yareeyo reductionka oo la yareeyo xaqaban u soconaay wuxuu kordhinayaa bulshada la qabsigeeda dhibaatada imanaysa iyo inay ka kabsadaan marka iyadoo artikelada noocaas lagu xusay baa waxa la yiri horta waayahay ya dunida ya u nugul waa dadka loo sameeyay adduunka dad baa dhibta ku dulacaysa marka waxa yiraahdeen waa wadamada Korea ayaaba dhibaatadu haysata sababo badan awgeed waxay soo qaataan Malthus wuxuu leeyahay population ka kordhaba balaaya la arka inkastoo jiro nin kale oo ka soo horjeeda وأسأقول له population كوكردا فإذا ينقضى human capital كأي كهرية واحد كست ما كبني آدم كهذا صفي عن الله استعماله وحصوص على كلاه وحبي نكسن ما كأيقو مال ستير كجوري بحليه هنا أفريقيا وحوا عندي بعض فرح بدن لا هرتوي حوي وعدد ونقول ربطة وحيابا نقولينا وحكوك أفريقيا ما هي ستو رجالك فلان هو بفرت ضد فقراء مثل بعض وضد فرح بدن waxay si xun u isticmaalaan kheyraadka wadankooda yaal waxay jaraan kaynta kadibna waxay ku ridaan xaluf kadibna waxa ka dhasho waan garanayna xawaaqibta aad u liidata marka waxay leeyihiin dadkaas ayagoo faqiirnimo haddana isticmaalay wixii ay haysteen doonayeen inay degdeg u isticmaalaan haddana dhib kale ayaa jirta wixii tahay Afrika waxay degan yihiin meelaha la yiraahdo marginalized area ama meelaha u nugul dhibaatada waxa ka mid ah xeebaha hoostooda xeebaha toodigi buurta ayaa ka sareysan marka way fatahaadaha u fudud fatahaadaha ay imanay marka waxay degaan sidoo kale dhulkaas marginalized area waxyaabo kale ayaa Afrika u saamaxay inay yani cimiladu saameyn badan ku yeelato waxa kamid ah waa dad dagaal ku furmaan ama dagaal iska ha noqoto ama ku weyn ba ha noqoto marka dagaalada wixii sabab u yihiin dad inay barakacaan dadka barakacay quxunti bay noqonayaan xariyaha lagu awday dadkaas waxa lumaya baahiyoodii asaasiga caafimaad horta xoolaha halkaas ka dhig xoolo waa laga tagay bini aadamka la sugumiyo waxa lumaya baahiyo asaasigood sida caafimaadkoodii hooygii waxyaabihii biyihii ma behelayaan baahiyo asaasi sidii awgeed waxa la 1.6 children ayaaba malnutrition maray adduunyada gudaheeda inta ugu badan Afrika ma nafaqo daro 1.6 billion adduunka oo dhan billion waa billion walibana Afrika ugu badan sababtu wax kale maaha waxa weeyaan waa barbax baa jira maadaama barbax yimid dadka ma helaan taas wixii inaga caawinaysa inaan dareeno 1.60 billion waxay u nugul yihiin cawaaqibta ka imanaysa climate change impactiga haddii ay fatahaad noqoto haddii abaar noqoto labadaba waxay awoodaas tahay waxay kaga faa'iideysanaysaa nuglaashooda waa dad vulnerable ah
waa dad adaptive capacity-ga awoodooda la qabsi uu hooseeyo waa dad xanuunka u nugul sidoo kale cimilada u nugul marka eriga vulnerability waa nuglaanshaha marka nuglaashaha marka eegto xilliga yani ay timaado dhibaatooyinka yimaadaan dadku yimaadaan kadibna ama disasterskan caadiga ayna lahayn awoodii adkaysiga ayna lahayn ayaa waxaa keenaysa inay runtii meelaha isugu yimaadaan ama ay noqdaan meel islaamiga meelaha isku raranti kadibna isku rantaasi waxay sii waxay kordhisaa markaasi awoodii waxay kordhisaa yani u nuglaashihii dhibaatooyinka ka imanaya cimilada aad way nugul yihiin maadaama ay nafaqa darro jirto fatahaad timid ama abaar timid waxay ku adkaanaysaa awoodooda la qabso markaad eegto waxaa kaloo jira ayaguna runtii waxyaabaha nugleeyay kamid ah la eegaya welina in aad runtii la maalgeliyo investment la siiyo infrastructure ama runtii kaabayaasha dhismaha dhaqaale sida wadooyinka ay kamid yihiin kala kamid bulshadii oo runtii ay kamid yihiin runtii dhammaan markaad isku wada geyso ay kamid yihiin dee shantii guryihii oo la ah qaar runtii adaptive la ah doorsoonka cimilada marka kuwaas ayaguna kamid ah marka inta isku soo wada koobto runtii waxay noqonayaan markaasi runtii eriyada barnaamijkan inka badan runtii awood uu siin karo dowladda la sii geli karo maxaa kusii daraysaa horta waa inahaas bay badan yihiin maadaama waxaan muhiim ah inaan isla fahno adduunyadan ma hadday kala qaybsantahay dad tagay iyo dad weli noloshii nolol maalmeedkii la daala dhacaya dhibaataduna ay ku dul dhacaysa kuwii nolol maalmeedka la daala dhacayay labadan la kordhinaya la qabsigooda iyo ka kabashadoodina ay u baahan tahay cid ka caawisa oo dhaqaalaha cidiina la helayo adduunyada joogto waxaan ku daray waxa weeyaan marka dadka yiri maxaa la saxeexay in ay adduunyada wax ku darsanayaan oo dadkii dhibaatadooda la wadaagay ayaguna la wadaagayaan maxaa la magdhowga marka ay yimaadaan projectyadu mashaariicda imanaysa inaga ayay noo timaadaa walow aynu nahay dal dhaqaalihiisuna weli korayo oo yar yahay sidoo kalena adduunyada kale aynaan calankeenu dee Soomaaliland weli aynaan hayn yani dad la ictiraafsan yahay laakiin still xagga maxaa la dhahaa weli ilaa xagga siyaasadda ay jirto laga yaabo in wadamo isku xiran ama xagga climate change ka marka laga hadlayo dhaqaalaha ay meelo kala faraha ku jirno weli ama cid la inoo soo mariyo oo aan si toos ah inaga dhaqaale ku saabsan inoo soo gaarin oo lagu talagalay inuu siyaabo kale u soo maro mooyaane waxaan ku daray wixii tahay dad kasta oo ka mas'uul ah mashaariicda noocaas maadaama ujeedada mashaariicdu tahay in la gaarsiiyo dadka vulnerable-ka dadka nugul dadka dhibaataysan dadka ku jira goobaha maxaa la dhahdaa meelaha la dhahdo IDPs-ka ama internal displaced persons-ka kaamamka dadka ku jira maxaa la abaaruhu wadanka ka soo rareen dadka aadka u liitay aan maxaa la dhahdaa maantaba yani COVID-19 baa ugu fudud waxa maraya yani dadka aan xamili karin mashaariicda marka ay timaado waa inay ku dhacdo gacanta ciddii loogu talagalay in la kobciyo awoodeeda la qabsi iyo awoodeeda ka kabasho muhiimadu waa intaas ayadoo lagu darayo siyaasada cad iyo waxyaabo kale marka siyaasadaha wixii ku jiraan qodobka ka dambeeya marka awoodan si loo kobciyo waa in la helo maxaa la dhahdaa haddii adaptive capacity aan ka hadalno waa in dadka lagu kobciyo adaptive capacity-gooda mashaariicda markay yimaadaan xaaladda degdega iyadoo looga faa'iideysanayo xaaladda bini'aadanimo haddii xoolo joogaan haddii dhir ay tahay isla xaaladda taagan haddii ay resilient tahayna waa in dadka laga qaybgeliyaa maadaama uu sanado qaadanayo waa in bulshada dhibtu haysata laga qaybgeliyo go'aan qaadashada intaas waxay keeni kartaa waxa la yiraahdo effective resilience and adaptive capacity dadka oo laga qaybgeliyo awoodooda dhaqaale haddii ganacsi tahay iyo haddii tahay dadka kale ee gacanta ku haya awoodaha sida dawladda oo kale maxaa hay'adaha madaxa bannaan dadka laftirkooda shicibka ee marka dhibtu haysato waa in dhammaan laga qaybgeliyo go'aamada resilience-ka ku waajib maadaama resilience-ku yahay wax sii jiraya oo u baahan wadanka waxa sidoo kale update u baahan markasta arrimihiisu ay soconayaan kas inahaas baan kusoo koobaya runtii xamdo aad u mahadsan tahay waxay noogu soo koobtay runtii qodobaad muhiima
qodobadan runtii mid kastaba haddii lasii dhex galo runtii waa runtii qodob kastaba wuxuu u baahan yahay markaasi tafaasiishiisa runtii iyo runtii de ka hadalkiisu u baahan yahay oo imika markaad eegto infrastructure-ka oo qaab runtii kaabayaasha dhaqaale la kordhiyo good governance-ka ka mid ah oo runtii dowlad wanaagii baa ka mid ah waxaa kale ka mid ah peace and stability baa ka mid ah oo degenaanshihii iyo xasiloonidii iyo waddanka inuu yeesho oo runtii de ina security kaga bixin markaa dhammaan dhaqaalihi oo dhan barnaamijkeena maanta halkaas aan kusoo koobi doonaa waan sii wadi doonaa markaasi episodada ku xiga inagoo indicatorkan sii qaadan doona qaar ka mid ama de runtii taargadadan qaar ka mid a sii qaadan doona marka waxaa jira laba erey baa kala jiro doorsoonka cimilada iyo isbedelka cimilada oo runtii af Soomaali ahaan markaad eegtaa iyaga laftooduna u baahan markaasi runtii marka isbedelku waa macnihi waxa weeyaan uu soo socon jiray weligiiba laakiin doorsoonku waa kan imika markaasi human ku bilaaban ku keenayna marka isbedel marka barnaamijkeeni maanta episode-kii labaad halkaas aan kusoo gabagabaynaynaa waa barnaamijkeeni teach when you learn initiative ama hal-abuurkii bar markii aad barato runtii wax maanta martii inooga ahayd maxamed runtii xamda cali maxamed anigoo maxamed ay idinla socodsiinayay inta mid lamida ku kulmi doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu